الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد مدن قدومية مدن يا القرصور يا المحكمة شرفت له وحن هل كان كسو قدبنا يا سوى فقصن قضوا كبقول سقالية طبعا قبدي كيسكي أن كد دفاع عايي ليس نياشا آذن يسعدال محمد آذن عبد الله يا عبد القادر عبد السعدال مدن قدومية محكمة شرفت له قرصور يا وحن ربا هوري هورينتبا إن هوردع كدكتو سوى فقصن قضبك بقول لحدن إيه سدح حركة habka ciqaabta Soomaaliya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ama dacwad oogaha metelaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waxa khasab ku ahayd waajib ku ahayd inuu maxkamadda horteera ka cadeeyo faldambiyeedka uu sheeganayo inuu dhacay ee ku xusan qodobka 241 iyo qodobada kale sida qodobka 300 iyo 60 iyo 366 وعديو eedeysanayaasha maxkamadda hortaagan ee aan qareenka u ahay maxamed aadan cabdilaahi iyo cabdul qaadir cabdi socdaal inay yihiin kuwa galay inuu cadeeyo ayaa waajib ku ahaada mudane gudoomiye garsoorayaal intii lagu jiray marxaladii 114 iyo marxaladii 119 dacwad oogaha metelaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka waa uu ku fashil mawaajibkaas mana cadaynin maxkamadda ma horkeenin hal shay oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba u sheegayo in Cabdul Qaadir Cabdi Socdaal uu galay faldambiyeedka ku qoran eeda xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu soo gudbiyay sidaas oo kalantood ma sheegin hal shay ama hal cadayn oo si toos ah iyo si aan toos ahaynba u sheegaysa in maxamed aadan cabdilaahi uu galay faldambiyeedka ku xusan eeda uu dacwad ooguhu soo gudbiyay maxkamadda mudane gudoomiye arrimaha uu dacwad ooguhu soo gudbiyay maxkamadda oo uu cadayn ahaanta u isticmaalay dhammaantood waa arrimo aanan sheegaynin in labada eedeysane ee aan difaacayo inay galeen faldambiyeed ma sheegayaan mid ayaan u dul istaagi doonaa hayeeshee waxaan rabaa inaan ku hormaro number 1 waxa uu maxkamadda u soo gudbiyay system saaka ka hor systemkaasi lama furin saaka ayaa la furay saaka markii la furana lagama dhaxelin hal shay oo sheegaya in maxamed aadan cabdilaahi uu galay faldambiyeedka ku xusan eeda sidaas oo kale lagama dhaxelin hal shay oo sheegayo in Cabdul Qaadir Cabdi Socdaal uu galay faldambiyeedka ku xusan eeda uu dacwad ooguhu soo gudbiyay su'aasha ilaa hadda la jooga taagan waxay tahay sidoo systemku u sheegaya in Cabdul Qaadir Cabdi Socdaal uu lunsaday lacag gaaraysa 83,000 oo qayb ka ay sidoo systemku u sheegay su'aashaas kama jawaabin xafiiska xeer ilaaliyaha asigoon ka jawaabin su'aashaas uu dacwadda gabagabeeyay systemku sidoo u sheegaya in maxamed aadan cabdilaahi uu dhinac ka yahay ama uu qayb ka yahay lunsiga faldambiyeed ama lunsiga lacag gaaraysa 20 milyan sidoo u sheegaya systemku su'aashaas kama jawaabin systemku waa la shiday rasiidyaal la sheegay inta systemku uu sheegay waxay ku kooban tahay rasiidyaal la galiyay qaar kamidana waa laga helay qaar kamidana waa laga waayay waxa xusid mudan in marxaladii 114 ee aan difaacayo eedeysan marxaladii 116 ee aan difaacayo eedeysanayaasha aan maxkamadda si waafi ah ugu sheegay uguna dooday in totally wax ka khuseeyo aynan jirin labada eedeysano ee aan difaacayo general receipt lacag ku qoran iyo tiin bara saaran saddexdaba waxaan sheegay in labada eedeysano ee aan difaacayo aynan soo saarin general receipt waxaan sheegay in labada eedeysane aan difaacayo aynan ku qorin general receipt lacagta lagu qoro waxaan sheegay in labada eedeysane aan difaacaya aynan saarin team baraha general receipt la saaro midka saxda ah xatee mudane gudoomiye waxaan sheegay in labada eedeysane aan difaacayo aynan saxiixin
general receipt kaas waxaan sheegay in labada eedaysane ee aan difaacayo aynan ahayn kambanigii la siiyay receipt kaasi sidaas darteed ma jirto mid beena iyo mid rumaba sabab loola xiriiriyo labadaas eedaysane ma jirto sidaas darteed waa wax aan micno lahayn systemka marka loo fiiriyo labadaas wax micnaaho ay leedahay ma jirto wax faldambiyada oo cadeeyana ma jirto haddii xafiiska xeer ilaalintu uu cadeyn lahay in shaqadoori shaqa ka baxsan ee ku aadan general receipt ay qabteen labadan eedaysane ay qabteen general receipt aan qusaynin ay soo sheegay ay soo saxiixeen oo lacag ay ku qaateen haday cadeyn lahayn waxbay ahaan lahayd laakiin ayadana ma cadeyn halkaas waxaan uga gudbay systemka iyo waxa uu sheegayo mudane gudoomiye warbixinta hanti dhowrka oo uu sheegay in ay cadeyn ku tahay labada eedaysana mudane gudoomiye waxa jiro arrimo waaweyn oo ku gadaaman warbixinta hanti dhowrka oo aan horay u sheegay fadhigan garmaqalkii 116 aan ku sheegay xafiiska xeer ilaalintuna uunan ilaa hadda la joogo ka jawaabin oo asigoo aan ka jawaabin uu gabagabeeyay dacwadda warbixintaasi waxaan sheegay inay sheegayso in 5 sanadood baaris la sameeyay waxaan marxaladii 116 ku dooday inay xaraam tahay oo aynan banaanayn oo na sharciga meel uga qoraynin in 5 sanadood la isku baaro aniga oo soo tix raacay qodobka 10aad 12aad 13aad iyo 15aad ee sharciga hanti dhowrka oo ah qodobo isku xiran oo aan la kala fasiri karin in xafiiska xeer ilaalintu si gaar ah u soo qaato qodobka 15aadna ay tahay arrin ka soo horjeedo hanaanka loo adeegsado qodobada xeerka waayo qodobada xeerka marka la adeegsanayo waxa khasab ah in la isla akhriyo qodobkan qodobada ka horeeya iyo kuwa ka dambeeyaba in la isla akhriyo lana ilaaliyo siyaaqa iyo sida xeer dajuhu ugu talagalay in la ilaaliyo haddii siyaaqaas iyo sida xeer ilaalihu ugu talagalay la ilaaliyo oo la isla fasiro qodobada waxa soo baxayso inaynan sax ahaynin in 5 sanadood la isku baaro waayo waxa imaanayso waxaan isku waafaqsanahay xisaabiyaha guudna hadda maxkamadda uu ku hor sheegay in sanadkii 2018 baaris la sameeyay baaristaasna aan laga helin faldambiyeed waxaan isku waafaqsanahay in sanadihii ka dambeeyay baaris la sameeyay aanan laga helin faldambiyeed sidaas darteed ma garan karno waxa suura gelin kara 5 sanadood kadib in faldambiyeed la helo iyadoo dhacdada ay cusub tahay adeeg cusub yahay xisaabiyaha guud oo nan faldambiyeed helin oo hanti dhowrihii markaas baaro oo nan faldambiyeed helin ma ogaan karno ama lama sheegi karo sabab ama awood soo kordha ma ogaan karno arinta labaad muhiimka ah waxa waaye xisaab xirkii la sameeyay maxaa micnaahu yeelanaya oo qiimaha yeelanaya waayo xisaab xirka micnihiisu waxa waaye qadiyad xisaabeed khusayso dhinacyo kala duwan in inta ka heshiiyeen la saxiixay waay xisaab xirka micnaheedu saas waay waa qadiyad xisaabeed oo dhinacyo kala duwan khusayso oo leh sargaalkii dawladda u adeegayay oo leh xisaabiyihii guud oo leh hanti dhowrihii dhammaan wada khusaysay oo laga heshiiyey oo la saxiixay oo xeer laga dhigay waay sidee marka suurtagal ku tahay xeerarkaasi la soo saaray lagu soo saaray heshiiska xisaabiyaha guud ishaag hanti dhowrihii iyo saraakiishii shaqadaasi haysay xisaabta ay wada xireen ee xeerkaasi ka soo baxay maanta in la furfuro sidee suurtagal ku tahay su'aashaas asigoon ka jawaabin ilaa hadda la joogo asigoon ka jawaabin xeer ilaaliyuhu oon soo hadal qaadin wax jawaabana aan ka bixin ayuu dacwadda gabagabeeyay waxaan u garanay dacwad ooguhu maadaama doodaynaas wax jawaabo uu ka bixin waayay inuu ku qancay doodayna sharcinimadeena inuu ku qancay jawaabna waa u waayay waa xujaysan yahay asigoo xujaysan ayuu dacwadda gabagabeeyay qofka xujada haday furi weysana doodi micnaheedu waxa waa in xafiiska xeer ilaaliyaha guud uu ka jawaabi waayay doodi eedaysanayaasha inuu ka jawaabi waayo oo asigoo xujaysan dacwaddu waa iga dhamaatay uu yiri arinta labaad ee marxaladii 116 aan sheegnay ee ku gadaaman warbixinta hanti dhowrka waxa ay tahay sargaalka baarista sameeyay oo aan shaqaale ahayn sargaalka baarista sameeyay asiga iyo annagaba waxaan isku waafaqnaa inuunan shaqaale ahayn shaqaalaha reedka uunan ku jirin askarta uunan kamid ahaynin
uunan dekreeta madaxweyne haysan oo shaqaale dawladeed uunan kamid ahayn shaqaalaha rasmiga ee dawladda inuunan kamid ahayn isku waafaqsanahay sidee nologaga dhaadhicin karaa sargaal shaqaale rasmiga dawladeed aanan ahayn in 5 sanadood baaris uu sameeyay ku dhici kartaa xeerka hanti dhowrka waxa uu qabaa cidda baarista sameynayso inay tahay shaqaalihiis cidda hawshiisa qabanayso inay tahay shaqaalihiisa ama shaqaalaha kali ee dawladda inay tahay ayuu qabaa waxa arintaasi sheegaya qodobka 3aad horay ayaan u sheegnay marxaladii 116 waxa soo haray waxa waayay in baarahaasi uu yahay shaqaale ku meel gaara micnaheedu waxa waaye shaqaale ku jiro tijaabo oo tijaabada hadduu ka baxana la shaqaalaysiin doono hadduu ka bixi waayana la ceerin doono waay shaqaale tijaabo ku jiro 5 sanadood baaris sameeyay shaqaale tijaabo ku jiro xisaab xirki maalin kasta la xiraayo buriyo shaqaale tijaabo ku jiro xisaab xirki 4 bilood la xiraayo buriyo xisaab ishaag baara tijaabo ku jiro ama shaqaale tijaabo ku jiro sanad kasta xisaabta la xiraayo buriyo shaqaale tijaabo ku jiro xeerarkii la soo saaray oo xisaabta lagu xiro buriyo waa markii ugu horeysay aan maqalna arintaas aad ay foolxumo noogu tahay xafiiska dacwad oogaha doodaas asigoon ka jawaabin ayuu gabagabeeya wuu xujaysan yahay xujadaasna waa furi waay waa ka gudubna iyadana waxay la mid tahay waxyaabaha ku gadaaman baarista hanti dhowrka waxyaabaha ku gadaaman mudane gudoomiye baarista hanti dhowrka waxyaabaha ku gadaaman ee marxaladii 116 aan ku sheegnay waxa kamid ah in la sheegay 41,000 5 qofood 58 qofood in loo adeegay loona sameeyay adeega dalku jooga laakiin lama gudbin liiska 40kaas iyo 1kaas qofood lama gudbin ilaa hadda la joogo lama arkin waa 41 qofood 41,000 oo qof oo shaqaalihi aan dawladda kamid ahayn baarihi aan shaqaalaha dawladda ahaynin kaliya oo og yahay waxa kalantooda uu sheegay 29,000 iyo abaf oo work permit loo sameeyay waa 29,000 iyo abaf work permit loo sameeyay oo og yahay kaliya ninka shaqaalaha dawladda aan kamid ahayn baaraha shaqaalaha dawladda aan kamid ahayn kaliya oo og yahay waana laga jawaabi waa su'aashaas markan su'aalaha weydiinaynay ayaan weydiinay way ka jawaabi waayeen ka bacdina doodayaan ku darnay kama jawaabin dacwadooguhuna maanta doodaasi wax uu ka falceliye ma jirin marxaladiisa gabagabada asigoo xujaysan ayuu dacwada gabagabeeyay baaristaas waxa ku gadaaman in la sheegay fiisaha dalku joog ama adeega dalku jooga inuu u qaybsamo 4 category sida buugga lagu sheegay mid $100 mid $300 mid $400 mid $800 laakiin laga jawaabi waayay imise fiisa ayaa $100 imise fiisa ayaa $300 imise fiisa ayaa $400 imise fiisa ayaa $800 waa laga jawaabi waayay iidan su'aashaasi laga jawaabin ayuu dacwada gabagabeeyay micnaheedu asigoo xujaysan ayuu dacwada gabagabeeyay waaya xafiiska xeer ilaaliyaha guud oo ka jawaabi waaya doodii aan u soo gudbinay mudane gudoomiye waxaan rabaa halkaas markaan uga gudbo baarista hanti dhowrka ee uu sheegay inay lidka nugu tahay warbixinta hanti dhowrka arrimahaasi ayaan uga gudbayaa waxa uu sheegay tiimbara wuxuu la mid yahay inaan waqtiga isaga lumiya ma rabee general rasiidka lagu dhajiyay xukunka oo qaata ayuu qaadanayaa waxaan intaas ku darayaa gudoomiye waxaan intaas ku darayaa marka la joogo lacag lunsiga been abuurida general rasiidka iyo tiimbaraha la been abuura intaba marka la joogo waxa iska hor imaanayo dooda dacwad oogaha iyo maraga aan sharciga waafaqsanayn duran ee maxkamadda asugu hor keenay wuxuu sheegay way iska hor imaanayaan maragu wuxuu sheegay waa marag duran on sharciga waafaqsanayn maraga duran on sharciga waafaqsanayn waxa uu sheegay in kaliyaha 4 qofood ama 3 qofood uu arkay tiimbaraha inay shaqo ku leeyihiin rasiidkana shaqo ku leeyihiin ayaguna wax ku saxiixa jireen waa maragaasi aniga ma ictiraafsani waana duraya ima khuseeyaba laakiin waxaan rabaa laakiin dacwadoogu wuxuu leeyahay iyadoo maragii duray uu saas leeyahay maya waxa lacagta lunsaday wuxuu maragan keenay
وشيء ما أهنه وحال عقد اللونصدي لبدان سرقالة كجرو وحال تيم برها سميه لبدان سرقالة كجرو واحد بين أورك سميه لبدان سرقالة بنكيا كجرو وعبد القادر يا آدم يا شيء حق الله شيء مركب وحن ربا هرتو مركب كوبات أصيغا إيه مرجيس الدوران هرتو هالشيان دعوة أوجه مرجيس الدوران هرتو هسوه الشيان وحن ربا أرنت كلام تود أو عدين أهانت وسو جد بيي أو شيء كونتوينك وحن كبحناي فسرات أيان كبحنا مدن قدومي كونتوينك فدي كهرية وحن شيء إلها إيا مسادرته أي ككلي مادان أما أي ككلي مدين لعجها كجرو كونتوين كاسي أي ككلي مدين أيان محكمة ده وشيءنا فسرا داسي أم بحناي محو أوجا جوابه يا تعود أوجو وسؤال إن لسويدية أباهن كليه وحوك فالعليه arrimo aan maxkamadda u gudbinay oo fasax kama haysan bangiga inay koontadooda lacag ku shubaan koontadeena inaan lacag ku shubna inaan bangiga fasax uga haysana inaanan uga haysan waa meesha laakiin waxaan rabnaa koontada Cabdulqaadir lacagta inuu ku shubo maxamed aadanna oo ku shubo koontadiisa ma fal dambiyeeda mujarrad koonta lagu shuba maya fal dambiyeed ma ahan haday fal dambiyeed tahay qodobka arintaas sheegaya sheeg yaa ka heesta qodobkaas ina eedaada ku soo darto ee aad ku soo eedeysay yaa ka heestay xeerku waa haysatay ma jiro qodob sheegayo mujarrad eedaysanuhu inuu koontadiisa ku shubo lacag qofku inuu koontadiisa lacag ku shubo كبعدنا أو نلصن أميه خصيصي أو جارسيو وحفل دنبيت كديجا مجران وخلادات مامول وأرماء شرعي جدا مامول كإيه هنانك وحلو مامول أنا وافق سنين لكن في الدنبيت معه وحاكلدوا وشرعي درو إيه وافل دنبيت لا بقى الرمودي كلاته وافل دنبيت وحلو لجلا حير كعقابته أما حير كلام توضع عقابات أيال الوحد قد بالو لجيدا وحيقول خلضوع عيسى أرنت في الدنبيد نمضو مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص أي أخضوع عيسى مبدأ أي أخضوع عيسى لكن أرنت شرع الدر نمضو وأرن كلام توضع أرنت سكدون وحادعي كرتو إن هنان معمول آخلافته وحادعي كرتو هنان ماليدد إن آخلافته وحادعي كرتو هنان أنشح كلي إن آخلافته وحيابها سيور واسك وحشر عد الرأى لكن إن اللي روا في الدنبيد وحي كاغبا هنتها قضب هردجيها صوماليغا أنسيحيي عقابتيسو أي عدهاي لما نهايا هدو جرانا أديغا كسو إيرين لهيري لما بقول أفرتيكو أرنتاس وحكما خسياني وحكالات هيسا مجران وسؤال إن لقى جواب لو باهن هاي أو نهان تدوره أو ندعوة أوجه كجواب وايا وحا أو كدار دعوة أوجه مركز الجوجو كونتوينك إن أنا كان العقد السيدة أي كوجا شيخ سند الدولة وان كاني لماذا وحن محكمة دوسوا جود بنا جاء ورجال العقد أي كوبحيز isla bangiga ay ku qoran tahay isla koontada ay ku caddahay waxaan rabnaa arinta oo muhiimka ah waxay tahay war ilaahan kugu dhaariyay siday suurtagal ku tahay maxaasa micnaahay leedahay maxaa micnaahay leedahay qofku inuu koontadiisa oo inta lacag ku shubo isla daqiiqadii uu ka bixiyo haddana bari sida uu yeelo oo bari damba sida uu yeelo oo bari damba sida uu yeelo maxay u faa'iideynay hadduu rabo inuu laco koontada ma iska dhaafay jeebkiisa inta ku qaato oo qaato hadduu rabo inuu dhaco xujajtaasi 116 ku soo oogna kama jawaab nin lacagta daqiiqaday gashay isla daqiiqadii ay baxda qaarna kaashay ku baxda laakiin mustali isla daqiiqadii jeega wareega ku baxda aniga inaan lacagta lunsada haddaan rabo maxaa ka soo kordhayo ina akoonkayga inta ku shubo isla markii aan bixiyo maxaa ka soo kordhayo lacagtii aan lunsaa waana isku cadeynaa miya
dad oo akaademiga oo caqli leh oo fayow waaya laakiin lacagtaas duruuftii ay u martan sheegnay aan sharaxnay mid aan u sharaxnay aan cadaynay lacagtu bankiga ma gaartay mase ma gaarin waxaan keena F35yadii khuseeyay visa accession-ka iyo work permit-ka khuseeyay ayaan keenay oo bankiga inay gaartay taas daliil u ah laakiin lacagtaan ma ahan ba lacagtaasi waa lacaga kalanto doodayda meel kale uga jirta oo waan ka doodi doonaa okay mudane gudoomiye waxaan rabaa maxamed aadan cabdilaahi asigana wuxuu ka sheegay oo ka fal celiya kaliya wuxuu ka fal celiya dalaal inuuna maangal ahayn lacagta dalaalka aan ku sheegnay lacag kooban ay ahayd shakhsiyaad caadiyana ku soo shubay qaarkeed war qof la yaqaan ku soo shuba hadda Dr. Ali Baashi anigu aqaan asugu yaqaan kan yaqaan lacag ku soo shuba inuu guri u gadina wax la og yahay fiir dad la yaqaan ku soo shuba koontadiisa qaarna inta la soo siiyo ku shubta waana lacag kooban oo kooban marka maangal maahan inuu yiraahdo inuu wax ku saleeyan u baahana transaction keen sheegay waxa la rabaa inuu inta qaato uu tagiyo oo waxaas wax ka duwan soo cadeeyo maangalnimada xagee lagu saleynaya mid uu asugu rabaa lagu saleynaya maya suurtagal ma aha okay arinta doorashooyinka cadaynan u keenay oo odayaasha aan ka soo qoray muxuu wax uga dhihi waayay laakiin arinta ku saabsan doorashooyinka see loo maamulay isay u dhacda waa arin kalantoodo gaara kiiska hana loo furo aan isugu nimaado laakiin qofku inuu doorashooyinkii maamulay oo ka qayb qaatay maxaa ira oday oo cid ka ahay oo hotel la kireenayo oo wax walba sameeyay oo shaqooyinkaas uu qabanayo waa arin jirto odayaashii uu mas'uulka ka ahayna ay soo cadeeyeen oo uu oday ka ahay konton iyo dhowr kursi oo iskugu jirto golaha shacabka iyo maxaan ilaahada iskugu jirto iyo aqalka sare iyo aqalka hoose iskugu jirto okay kuma saabsan arintan kuma saabsano gudoomiye waxaan rabaa arinta la xiriirto bankiga dhexe oo hadda uu soo daliishaday bankiga dhexe waxa uu sheegay waxaan sheegnay wax badan kuma kala duwan sargaalka bankiga dhexe hadda hanti dhowraha ka yimiday dhowr arrimood uu sheegay wuxuu sheegay inay sharci darro tahay koontada in lagu shubo lacagta waa sharci darro sheegay anaaba marxaladii 116 ku sheegay laakiin waxaan sheegay duruufihii la xiriiray muxuunan uga jawaabin warqadda salaam bankin muxuunan uga jawaabin dacwad oogu muxuunan uga jawaabin warqadaha F35da muxuunan uga jawaabin dacwad oogu oo ugu hadli waayay marka uu joogo marxaladda gabagabada arinta sharci darro ku saabsan anaaba qababa laakiin faldambiyad ma ahan waa khanaan maamulo khaldan waayo waxa soo haray okay dacwadoogu wuxuu sheegay oo cadeyn ka dhigtay 16 milyan oo bankigu soo cadeeyay arintaas waxay u dhigantaa buu yiri waa qiraal ay qirsan yihiin qareenadu in faldambiyad la galay meesaas ma aha qiraal ma aha laakiin waxay u dhigantaa 12 milyan soo sheegtay 16 milyan aan la soo helay soo sheegi mayso inaan lagu kalsoonaan karin xisaabintaada ninka xisaab ahaan ay uga lunta 2 milyan oo dollar $100 ma ahan 200 ma ahan 100 ma ahan 100 ma ahan 2 milyan oo dollar ninka ay xisaab ahaan uga dhuntay see loogu aaminayaa xisaab 5 sanadood waa soo 4 milyan 4 milyan waay 4 milyan ninka xisaab ahaan ay uga dhuntay sida oo shaqaalaha dawladana aan ku jirin see loogu aaminayaa inay runta xisaabtu soo saari habkaasan u daliishana anaga wixii kalaantood lacagta kalaantoodna sida dhankaanba oo unan run uga sheegin systemka socdaalka una run ka sheegin waaya macnaheedu mudane gudoomiye garsoorayaal waxaan rabaa arinta iigu harsan waxa waaye oo uu soo qaatay gabagabadiisa oo ku soo qaatay baarista hanti dhowrka oo hanti dhowrka gudaha ee bankiga baarista uu sameeyay arrimo uu ku helaa jiray wuxuu dhahay 14 bishii 12aad 2022 warqadaas annagaaba gudbinaba 2022
waxaa laga dhaxlay warqad xilligaas lagu soo download gareeyay computerkii xafiiskaas ninka ka shaqeynaya uu ku soo download gareeyay isla xilligaasna modification lagu sameeyay oo wax laga bedelay isla xilligaas okay oo laga daabacay okay arrintaas inaynan saxnayn iyo inay saxan tahay waa meesheeda laakiin ma lacag lunsiya haday lacag lunsi tahasa yay khusaysaa su'aalo in laga jawaabo loo baahan yahay taas waay inaynan saxnayn baarihi gudaha soo sheegay baaraha gudaha ee soo sheegay khaladkaas dhacay oo yarka ee soo sheegay lacag saraakiishaasi lunsadeen miyuu qarin lahay maya sargaalka arrintaas computerkaas ku shaqeynayana maya maya ma ahan labadaanin ma ahan waa sargaal kaleantood oo ka duwan de 14 bishii 11 horta computerku wuxuu yaalaa xafiiska lagu qabto dakhliga visa extensionka lagu qabto yaalaa computerku meeshaas uu yaalaa meeshaas waxa ka shaqeynaya wixii ka dambeeyay socdaal wuxuu ka shaqeynaya wixii ka siday soo sheegaan 31 bishii 3 ilaa 19 abriil say ayagu soo sheegeen okay macnaheedu waxa waa socdaal ma aha waa 14 bishii 11 2022 ka socdaal xilligaas ma joogi shaqana kuma lahayn aadanna ma xafiiskaas kama ba shaqeeyaba xafiiskiisu meel kale koro ku yaal waa annagii isku waafaqayna annaga iyo sargaalka booliska intaas soo tilaab inay isu jiraan kun tilaab wax ka badan isu jiraan anagu qabnaa inkastoo booliska una nagu waafaqin laakiin ayaguna waxay sheegaan wax tiro badan inay isu jiraan oo sheeg inkastoo kunka una sheegay okay macnaheedu marka waxa laba su'aal inaan ka jawaabtaa laga rabaa su'aasha inaan ka jawaabo la rabo waxay ahayd dacwadoogu war labadan sargaal miya la iskale computerka iskale waa maya ama ku shaqeeyo waa maya okay haday labadan sargaal ayna iskale computerkaas ayna ku shaqeeynin maxad ugu soo haysataa oo aad leedahay cadeynay u tahay midda labaad arrintaasi ma lacag lunsiya waa maya lacag lunsi ma ahan okay inayna lacag lunsi ahayn waxa daliil u ah isla arrinta warbixinta ku xusan oo ah sargaalka arrintaasi sameeya hal laga qaado tilaabo sharciga waafaqsan oo yaa ka qaadayo waxa ka qaadaya isheeg dadka qaabilsan shaqaalaha qaabilsan macnaheedu waxa waa arrintu faldambiyeed ma gaarsiisnee sargaalkaas la anshax mariyo marka faldambiyeed ma aan arrintaas dacwad ooguna inuu faldambiyeed ahayn wuu ila qaba maxaa daliil u ah qodob arrintaas khuseeyo uu keeni waayo xeerka ciqaabta uu ku keeni waayo waqtiga ugu socda meeshaas inaan ka gudbaan rabaa arrinta aan rabo inaan ka hadlo waxay tahay mudane gudoomiye waxa waaye waxaan rabaa arrin kale aan 716 aan ka dhawaajiyo waxa waaye hanti dhowraha waxaan dhahnaa guud ahaanba ama shaqaale dawladeed ha noqdo ama yoona noqonin xafiiska hanti dhowraha guud ahaanba saraakiisha bangiga dhexe ma baari kariyo mana khuseeyo jawaab kama bixin xafiiska dacwad ooguhu wax jawaabaha uu ka bixiyay ma jirto waxaan ku doodnay marxaladii 116 waxaan ku doodnay in lacagaha lagu soo sheegay koontooyinka eedeysanayaasha aynan ahayn visa extension totally inaynan ahayn oo Cabdulqaadir Cabdi Socdaal lacagta 2 milyan oo la sheegay akoonkiisa inay dhex martay oo bangiga dhexe ay u gudubtay maba ahan visa extension Maxamed Aadan Cabdilaahi asigana waa la mid visa extension ma aha waxaan dhahanay Maxamed Aadan Cabdilaahina waa customka waana lacago badan kooru maalin jimcaad la qabta maalin jimcaadna visa extension ma shaqeeyo ama maalmo ciida ama maalmo shaqaaluhu fasaxan yihiin waxay doontaa noqotay oo asugu odaytinimo meesha inta u tago oo shaqada qabanaya maadaama hawshu aynan istaagaynin okay su'aasha isqabna marka waxa waaye horto xagow shaki uu ka jiriyaa visa extension iyo work permit uu shaki ka jiriyaa lacagtaane visa extension iyo work permit miya koontada marta waa maya xiriir la male maxad u soo daabacda koontadaas wax jawaabahu ka baxsha ma jiraan marxaladii 116 waa ku dooda asigoon ka jawaabin yuu dacwada gabagabiyay dacwad oogu wuu ka jawaabi waayay arrintaasi
اوكي arinta oo muhiimka ah oo inaan ka jawaabo aan rabo waxa waaye xeer ilaalintu inay ka jawaabto loo baahnay oo difaaciga aan ku soo bandhigay waa aniga doodaydu ku sheegay waxa xisaabta soo xiraayo xisaabiyaha guuda imaanayo xisaabtu xiraya khasnajiga uu la xiraya u saxiixaya khasnajiga guud maxamed aadan cabdullaahi kadib uu soo gudbinayo marka uu soo gudbiyo ka bacdina bangiga dhaxayo wacaya lacagta waa la qaadaa buu leeyahay arintaas waxa igu waafaqay xisaabiyaha guud maanta yimida igu waafaqay war xisaab la soo xiray oo xisaabiyaha guud soo xiray on xisaabiyaha guud la haysan oo khasnajiga guud la soo saxiixay oo alla ii keenay bangiga dhaxansa u wacay on xiraaya iriye xisaabiyaha guud dambiga uu nan kula hayno ku leeyahay kan muxuu uga jawaabi waa arintaas doodaas muxuu uga jawaabi waa dacwad ugu asigoon ka jawaabin ayuu dacwada iska gabagabeeyay ilaa hadda la joogna jawaab ma lahan waxa kamida mudana gudoomiye arimaha uu nan ka jawaabin waxa kamida waxaan maxkamadda u gudbiyay warqadaha F35 warqadaha F35ka waxay adkaynayaan dooda hadda aan sheegay waxay sheegayaan in lacagihii visa extensionka iyo work permitka laga qabtay oo maxaan iraahdaa xisaabiyaha guud maalin kasta inuu imaanayo oo uu xisaabta xiraayo khasnajiga guud oo la xiraayo kadib maxamed aadan cabdullaahi loo soo gudbinayo bangiga dhexe uu wacaayo la xireynayo warqadihina waa gudbiya kelimad xataa kama dhihin warqadahaas wuu ku qanca doodayda يعني doodaydu way aftirta waaya macnaha laakiin wuu ismoogeysiiyay waxaan maxkamadda u gudbiyay marxaladii 116 koontooyin sharci darro ah ee hay'adaha dawladda laga furay hal eedeeya kama wadee laakiin hanti dhowrku markuu ka warbixinayay oo ku daray compliance report-ka oo ku daray koonto asagu wuxuu qabaa lacag kastoo dawladeed waa in khasnada midaysan lagu shubo laakiin wax dhowr iyo 10 hay'adood ka badan oo aan ka soo dejiyay report-ka hanti dhowrka oo website-ka hanti dhowrka aan ka soo dejiyay oo koontooyin gaar ah lacag lagu shubay oo compliance report-na lagu daran soo arkay arintaasi soo daliil uma ahan in hanti dhowraha iyo dhammaan dawladuba koonto gaar ah hadii lacag lagu shubo hadii lunsi aanan la cadaynin ay noqonayso arrin khalad maamul la isku waafaqsan yahay oo maadaama hanti dhowruhu uu ku daraayay warbixinta u hogaansanaanta sharciga uu ku daraayay hal jawaab kama bixin hay'adahaas waxa kamid ahay in kastoo koonto sharci darro aynan ahaynin laakiin waxay uga jireen 2019 xafiiska xeer ilaaliyaha guudaha kamid ahay oo gawaari aan lagu diiwaan gelin magaca xafiiska xeer ilaaliyaha guudaha ku jiray 2019 hal jawaab oo uu ka bixiyay ma jirto waxaan maxkamadda u gudbiyay oo uunan ka jawaabin warqadii salaam bankan Soomaali oo sheegaysay in lacagtaasi jeega wareega ay ku bixaysay wax jawaab ah oo ka bixiyo ma jirto waxa uunan ka jawaabin dacwad ooguhu fasiraadi aan ka bixiyay koontooyinka eedaysanayaasha aan ka bixiyay wax jawaab ah oo ka bixiyo ma jirto gudoomiyo garsoorayaal waxaan hadda maxkamadda la wadaagay laba iyo 10 arrimood oo aan ku dooday marxaladii 116 oo laba iyo 10 kooduba mid kamid ay ugu filan tahay oo laba iyo 10 kuba uu jawaab u waayay dacwad oogu oo marxaladiisi oonan uga jawaabin gudoomiye waxaan jawaab ka bixinay wax allaala wixii cadayn uu soo gudbiyay oo cadayn uu ku sheegay waxaana sheegnay inaynan wax xiriir la lahayn labada eedeysanay inaynan xiriir la lahayn ayaan sheegnay waxaan rabaa inaan ku soo koobo laba arrimood oo kaliya labada arrimood oo ku soo koobaya waxa waa gudoomiye waxa jiro isburin ku aadan dooda xeer ilaalinta marka Cabdulqaadir Cabdi Socdaal la yiraahdo wuxuu leeyahay Cabdulqaadir Cabdi Socdaal eeda waxa ku qoran waxa uu qayb ka noqday
83,000 lunsigeeda hadduu eedda saasay ku qoreen dooda markuu yimaado wuxuu leeyahay maya lacag 20 milyan ah oo akoonkiisa martay yow inta lunsaday uu dhaqay adeerow ma midda eedaada ku qoranaa run ah mase 2 milyan ee makrofanka ku sheegay sida run ah midun rumay waxa kale uu leeyahay Cabdulqaadir Cabdi Socdaal wuxuu lunsaday 2 milyan kaliya wuxuu 2 milyan waa lacagtii dawladda laga xaday okay kaliya wuxuu lacag lunsiga qayb ka yahay 20 maalmood ayuu qayb ka yahay lacagta uu lunsanayo 20 ka maalmood oo bishii afaraad ah 20 keeri maalmood ugu horeysa ah oo uu lunsanayo wuxuu sii dhaqaayay 2018 2019 2020 2020 war waxaas wax aqliga bani aadamku aqbali kariyo miya maya ma aan aqliga bani aadamku ma aqbali kariyo war adeerow adaa waxa dhahaysid 20 maalmood kaliya meeshan jooga hal loo soo bedelay akoonkiisa 2018 2019 2020 maxaa ku daba dhigay shaki ma kaaga jiro in 2018 oonan meeshan ka shaqeeynin shaki ma kaaga jiro in 2019 oonan visa accession ka shaqeeynin shaki ma kaaga jiro in sanadahaas oonan ka shaqeeynin maxaa akoonkiisa u soo daabacday okay haddad leedahay okay lacagu waa lacag dawladeed okay waa lacag dawladeed waa gartay laakiin arrival waaye arrival miya ka shakisanta waa maya kama shakisnid haddad ka shakisanta maxaadan u baarin haddad baarta kadib Allahna gaarsiiyo maxaa u soo daabacday akoonkiisa in la soo daabaco meeshan la keenaba sharci darray ahaaday waxaanad yaani in kaliya in dadka laga naxsado waay oo la yiraahdo waa taas horaana u sheegayo waa taas waa martay waa ku dhacday la dhahay laakiin waa ka baxday oo bankiga dhexe aad waa laga reebay arinta ugu dambayso waxay tahay mudana gudoomiyo intaan codsigayga aanan gaarin wuxuu dhahay qareenada ayaa eedeysanaha dusha ka saaray eedeysana kalantood waxaan dusha ka saarna ma jiraan doodayna khulaasadeer waxa waaye general receipt hadduu run yahay iyo hadduu been yahay shaqo ku malihin tiim bare hadduu run yahay iyo hadduu been yahay shaqo ku malihin lacagta ku qoran hadday run tahay iyo hadday been tahay iyo haddii la dhacay iyo haddaan la dhicin shaqo ku malihin waxaana khuseeyo waa lacagtan qabana cadeynaana u keenay waxaan u keenay xisaabiyi guud xisaabta uu naga xiraana u keenay doodayna khulaasadeer waa intaas dad kale inta soo maahan ayaga heesla boodboodaano ayagaan iska difaacay maaha anagu wala xil lunsadeen ma dhihin wali afkaynan ku cadeyna inayna wax inay lunsadaan inaana aaminsanayn mudana gudoomiye markaan u gudbo codsigayga gabagabadeyda maadaama xafiiska xeer ilaaliyaha guud qaranka oo ku guul dareestay waajibkiisu ku xusnaa qodobka 163 xeerka habka xaqaabta Soomaaliya maadaama xafiisku uu nan keenin hal shay oo sheegaya ama cadeyn u ah in Maxamed Aadan Cabdilaahi iyo Cabdulqaadir Cabdi Socdaal ay ku kaceen faldambiyeedka ku xusan qodobada oo soo gudbiya eeda maadaama xafiiska xeer ilaaliyaha guud oo awoodi waayo inuu ka garnaqsado ama uu ka jawaabo dhowr iyo 10 arrimood oo dhamaantood wada xujo ah oo sheegayo in doodu ay khaldan tahay baaristuna khaldan tahay eedaysanayaashuna ay bari yihiin oo uu ka fal celi waayay markii la jooga gabagabadiisa uu ka fal celi waayay maadaama aan maxkamadda u cadeynay in lacagta ay sheegeen in la lunsado lacagta ay sheegeen inay bankiga ku dhacday lacag ka badan aan u soo gudbinay taasina ay micnaheedu tahay inaan lagu kalsoonaan karin baaristooda maadaama cidda baarista samaysaba aynan sharciga waafaqsanayn waxaan maxkamadda weydiisanaynaa in ay ku weyso labada eedeysana ee aan qareenka u ahay faldambiyeedka aan cadeynta wadan ee xafiiska xeer ilaaliyaha guud qaranka uu ku soo eedeeyay inay maxkamaddu tixgeliso baraa'adooda asalka xeerku uu siiyay dastuurku uu siiyay shariicadu ay siisay annagana inaan u ictiraafno waajibka ay nagu tahay inay maxkamaddu tixgeliso fasiraadii aan ka bixinay koontooyinkooda maadaama fasiraadaasi fasiraad khilaafsan la keeni waayo waxaan maxkamadda weydiisanaynaa inay xurriyadooda u soo celiso ayna sii dayso maadaama lagu waayay
eedii xafiiska xeerlaaliyaha guud qaranka uu ku soo eedeeyay maadaama uu cadeyn waayay maxkamaddu waa mahadsan tahay wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh